قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان قرآني قرآني معجزة الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيوت الآمنة، وفي الصومالي لو قلت ترجمة قرية نبضة. قريها النبضة aynu doonno inaynu ka hadallo waa guryaha dadka muslimiinta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsaday nafahooga, kuna dadaalaya inay guryahooga ka dhigaan guryo ku camiran taqwada iyo taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala, guryo lagu fuliyo axkaamta ilaahay subxaanahu wa tacaala, lagaga dhaqmo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam. inta aynaan gudagelin dulucda iyo nuxurka muxaadaradan, waxaan doonayaa in aan ina wada xusuusiyo inay jiraan mu'aamaraad loo doonaayo sidii loogu dumin lahaa guryaha muslimiinta. waayo mujtamacaadku waxay ka unkan yihiin afraad bay ka unkan yihiin. afraaddaasi ayay reeruhu ka unkamaan. haddii ay qoysasku noqdaan qoysas saalixa oo islaamka dhaqan gelinaya, oo guryaha ku fulinaya sunnaha nebiga sala allahu calay wasalam, carruurtooda ku korinaya diinta ilaahay iyo sunnada rasuulka, oo jecel alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam, mujtamacii wuxuu noqonayaa mujtamac aamina oo nabad qaba. wuxuu noqonayaa mujtamac ku dhaqma wixii ilaahay subxaana wa tacaala raali geliya. sidaasi aawadeed ayaa dadka muslimiinta waxaa la gudboon inay dhammaan ay isku kaashadaan oo isku caawiyaan sidii loo heli lahaa guryahaasi ku dhaqmaaya diinta iyo shareecada. ibnu khalduun oo ahaa caalim muslima, cilmiga ijtimaacana aad u yaqaanay, ayaa wuxuu inoo tilmaamay in umamka laga adkaado ee qaalibka laga noqdaa ay aad iskugu taxallujiyaan sidii ay ugu dayan lahaayeen ummadaha ka qaalibka noqday. ina alumma almaqluuba muqrama bitaqliid alumma alghaaliba. ummadda laga adkaaday waxa ay ku talax tagtaa inay ku dayato oo ay dhaqanka iyo caadooyinka ummadaha ka adkaaday ay qaataan. arrinkaasina waa arrin la wada arko weeyaan, oo aad garanaysaa isticmaalka reer galbeedku markay caalam islaami ay gumaysteen in ay dadkii muslimiinta ahaa ay qaateen dhaqankii gaalada ay qaateen. laakiin waxaa laynooga digayaa inaynu kale aynu dhaqankooga iyo caadooyinkooga aynu qaadanno, oo aynu noqonno
ummad ku faanaysa dhaqankeygii iyo caadadeedii ku dhisnaa diinta islaamka waayo ummadda muslimka ah ilaahay baa subxaanahu wa tacaala siiyey cizo iyo sharaf iyo karaamo walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ayay cizadu u sugan tahay nebigana sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qofka isagu cid kale ku dayda oo dariiqooga raaca oo tashabbuha nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu leeyahay fahuwa minhum qofka isagu cid kale ku dayda oo dariiqooga raaca oo tashabbuha nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu leeyahay fahuwa minhum arrinka labaad aynu doonayno inaynu xusuusnaano marka aynu ka hadlo guryahan aaminkiihi waa inaynu ogaano guryaha muslimiintu waa guryaha soo saari kara weligoodna soo saari jiray ajyaal iyo caruur mu'miniina bimacna alkalima fahamsan islaamnimada ku dhaqmaaya diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel alle iyo rasuulka ku faanaya diintooda iyo waxa ay yihiin walidaalika ayaa waxa weeyaan guryahaasi ayaa soo saaray in culimmadii waaweyneed aynu naqaanay sida taariikhda lagu hayo in anas bnu malik radi allahu canhu hooyadii umu sulaym ayaa nebiga u keentay isagoo ilmo yara oo waxay ku tiri yaa rasuul allah kani waa anas waxaan kuugu keenay inuu kuu khidmeeyo laakiin waxaynaan ilaabi karayn in anas ibnu maalik hooyadii radi allahu canha iyadoo jeclayd inuu wiilkeegu nebiga u khidmeeyo uu khaadimu noqdo haddana waxay xusuusnayd radi allahu tacaala canha in uu sharaftaasi loogu lamaanaynayo fadli kale oo ah inuu nebiga ka manaafacadsado uu akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa iyo cilmigiisa iyo hadyigiisa dhaqankiisa inuu ka barto marka waxaad taasi noo tilmaamaysaa hooyadaasi wanaagsaneed sida ay ugu dadaashay inay ilmaheegii ay nebiga u keento anasna waa ka marka dambe inooga warramaya inuu nebiga sala allahu calayh wasalam uu u khidmeeyey 10 sano cilmiguu nebiga ka bartay iyo axaadiista uu nebiga ku xafidayna waa mid la yaqaano oon dadka dalabatulcilmi iyo culimmada aan ka qarsoonayn alimaam malik imaamu daar alhijra ayaa wuxuu yidhi anigoo yar ayaa hooyaday inta ii cumaamado ayay odhan jirtay orodoo rabiica u tag rabiicatu ra'yi waa musheekhda imaam maalik mid ka mid a ayuu ahaa saa waxay ugu odhan jirtay orodoo u tag oo tacallam min adabihi aadaabtiisa soo baro intaanan cilmigiisa baran marka waad arkaysaa imaam maalik oo noqday imaam weyn waa min ala'imma alarbaca culimmada waaweyn ee taariikhda islaamka mashhuurka ku ah imaamu daari hijrana in magac looga dhigay iyo laqab looga dhigay hooyadii ayaa tashjiicisay hooyadii ayaa u diri jirtay xalaqada rabiica imaamkaasi kale ee isaguna caalimka ahaa waxaa halkaa inooga caddaanaya ayuha alikhwa walakhawaat in guryuhu ay yihiin kuwa soo saara ajyaal wanaagsan oo ummadda manaafacaad u geysta laakiin haddii guryaha muslimiintu ay noqdaan kuwo aan sunnaha rasuulka aan laga dhex aqoon kuwo aan hadyigii rasuulka aan aqoon ee tv iyo heeso iyo ikhtilaad iyo dhaqan gaalo oo dhaqankii islaamka ka duwan haddii ay noqoto guryaheennii waxaasi waxa lagaga dhex dhaqmo dabeetana waxa weyn ajyaasha ay hadhow soo saarayaan waa ajyaal khatara mujtamaca iyo ummaddana aan u adeegayn aan isla markaana aan baylah tirayn dantii ummadda ayuha alikhwa walkhawaat mawduucan aynu kaga hadlayno guryaha aaminka ah ugu horrayn ayuha alikhwa walakhawaat waa inaynu ogaano oo inu ilaahay subxaana wa tacaala aynu ugu mahadnaqno inuu ilaahay guryo aaminayna siiyey waayo waxaa jira dad aan guryanba haysan baa jira dad carruurtoodii meelay seexiyaan iyo har ay harsadaan aan haysan dadkeennii soomaalida ayaa ka mid ah waxaad qiyaastaa dadka soomaalida ah ee haray harsadaan iyo guri ay dhaxanta ay ka galaan aan haysan furaash ay carruurtoodu ay ku seexato aan haysan meel aamin ah
oo caruurtoodu ay wax ku cunto nicamkaasi uu ilaahay subxaanahu wa tacaala adiga uu ku siiyey inaad xusuusnaato ayaa lagaga baahayay markaad og tahay inaad guri waasica aad ku dhex jirto oo caruurtaadii ay nabad ku seexanayso oo caruurtaadii waxay cunto ay haysato oo furaashii sariir ay ku seexdaan ay haystaan qofka muuminkana ayuha alikhwa waxaa looga baahayay mar walba in aanu ilaabin ee uu xusuusnaado nicmooyinka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey nicamka badankoogana waxaa la sheegay oo aynu ognahay inaguna in aanu qofka bini aadamkii ku baraarugin oonu xusuusan ilaa uu waayo walidaalika ayaa qofka indhaha le'i wuxuu dhibaatada indhala'aanta ogaadaa uun markuu indhabeelo qofka curyaankii fadliga laba lugood oo lagu socdo oo ah risqi ilaahayna siiyey oonan cidna weydiisanayn inay magaranaysaa ay ku qaadaan ama ay ku saacidaan nicmadaasi waxaa la ogaanayaa uun markuu qofku curyaan noqday oo lagu hii waayo caafimaadka gebi ahaantii waxaa qofka bini aadamku nicmadaasi weyn u xusuustaa haddii ilaahay jalla wacalaa caafa allah wayaakum uu cudur ku keeno nicamka faraha badan ee ilaahayna siiyey waxaa ka mida nicmada guryaha ayaa ka mid ah inuu ilaahay caruur ku siiyey inuu ilaahay zawjad ku siiyey inuu ilaahay zawj ku siiyey inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyey guri aamina ood ku nooshahay ibnu taymiya raximah allahu tacaala ayaa isagoo tilmaamaya socodka qofka bini aadamku uu socdo aakhiro ayaa waxa uu yidhi qofka mu'minku wuxuu ku dhex jiraa bayna mushaahadat alminna wa mutaalacat aldunuub qofka mu'minki mar walba labadaasuu udhexeeya waa mushaahadat alminna wanicma inuu qofka mu'minki mar walba xusuusanayo nicamka uu ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo nicamka ilaahayna siina way badan yihin caruurtii baa ka mid ah xaaskii reerkii baa ka mid ah zawjkii baa ka mid ah caafimaadkaa ka mid ah nicmat alislaam nicmat alqur'aan nicmat aliimaan nicmada ilaahay nebi maxamed sala allahu alay slam inoo soo diray oo in ummaddiisii aynu ka mid nahay inaynu islaamnimo ku dhalannay inay waalideynteennii ay muslimiin ahaayeen kullu dalika waa nicam loo baahan yahay qofka mu'minku mar walba xusuusnaado oonu ilaabin marka qofka mu'minku min jaanib wuxuu arkayaa nicamka uu ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey jaanibka kalena wuxuu arkayaa qofkii mu'minka ahaa dunuubtiisii iyo taqsiirtiisii iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala waxaasoo dhan ugu nicmeeyey oo uu fadligaa faraha badan siiyey ayaa haddana wuxuu is arkayaa inuu taqsiiru ku jiro hadalkaasina waxa uu ibnu taymiya uu sheegay waxaa taxqiijinaya xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam ducada la yidhaahdo sayid listikfaar oo nebigu aroortii iyo galabtii u akhriyi jiray sala allahu alay wasalam oo odhanaysa abu'u laka binicmatika calaya wa abu'u bidanbii fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta waa hadalkii ibnu taymiya xadiiskan baa laga soo qaatay uu lahaa qofka mu'minku wuxuu u dhexeeyaa bayna mushaahadat alminna ومطالعة الذنوب والتقصير نبي دعاءنا كن دعايسنا أي صلى الله عليه وسلم وحي إلهي رهي ونبي قرنشري صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي أبوء بمعنى وحويا وأقر وأعترف إلهي وحن كوقر يا نعموين كفرها بدن السيسي وأبوء وحن كرام قرانيا أو اعترافيا بذنب ذنوب تيدي مركا قفه بالآدمي لما نصمد بحيسا nicam fara badan oo ilaahay ku siiyey iyo dunuub aad ku dhacday marka dunuubtana ka toobad keen nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyeyna ilaahay jalla wa ala ugu shukrina faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ayuha al-ikhwa wal akhawat hadaynu taasi soo ogaanay guryaha muslimiintu maxay kaga duwan yihiin guryaha kale ma dhismaha furniture-ka iyo alaabada taalla quruxda iyo ziinada guryaha lagu qurxiyey miyay guryaha muslimiintu guryaha kale kaga duwan yihiin mise waxaa jira waxyaabo kale oo guryaha muslimiinta ka soocaya guryaha dadka kale haddii ay masaladu tahay dhismaha iyo furniture-ka iyo ziinada iyo weynida guryaha iyo inta qol ee gurigu ka kooban yahay dee taasi waxa weeyaan
muslimka iyo kaafirku way ka midaysan yihiin qofka saalixa iyo qofka faajirkii way ka midaysan yihiin waxa su'aasha meesha ku jirta ay tahay guryaha muslimiinta maxay kaga duwan yihiin guryaha dadka kale jawaabtu waxay tahay laba arrimood bay guryaha muslimiinta guryaha dadka kale ay kaga duwan yihiin una fiirso ayuha al-akh waayatu al-ukht waa xooyn inaynu inagu aynu qiyaas ka qaadana ayaa loo baahan yahay si aynu guryaheena u wanaajino aynu u islaaxino aynu uga dhigno kuwa ku amiran taacada iyo taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala waay guryaha muslimiintu waxa ay kaga socoyin guryaha kale waa dadka degan iyo arrin labaad oo ah waxyaabaha gurigaasi lagaga dhaqmo ee yaala haddii aynu ka hadalno dadka guryahaasi degani waa mu'miniin weeyaan waa addoomo ilaahay oo saalixiin ah oo shareecada ilaahay iyo diintiisa subxaanahu wa tacaala ku dhaqmaaya oo hirgelinaya waxyaabaha guriga dhex yaalla muxtawayaadkiisu waxay doonaan ha ahaadaan waa wax u adeegaya diinta ilaahay wax allaale waxa gurigaasi dhex yaalla haddii ay dadkii noqdeen dad saalixiina oo cubaada oo ilaahay iyo daarta aakhiro damac kaga jiro qalabka guriga gudihiisa yaalla noocay doonaan ha noqdaane waa qalab iyo alaab loogu adeegayo diinta ilaahay waa qalab loo adeegsanayo sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala loo adeeci lahaa oon ahayn sidii ilaahay jalla wacala loo caasi lahaa arrinkaasi tafaasiishiisa hadhow baynu kaga warrami doonaa haddaynu sii tafsiilino waxyaabaha iyo qalabka iyo alaabta guriga yaalla guriga muslimiinta waxaynu ku soo koobaynaa laba nuqdadood baynu ku soo koobaynaa ta hore waa waxyaabaha guriga lagu wanaajinayo ee gurigaas u keenaya khayr iyo wanaag iyo salaax iyo taqwa iyo wuxuu ilaahay jecel yahay taasi waa mid ta labaad waa waxyaabaha aynu u baahan nahay haddaynu muslimiin nahay inaynu guryaheena ka nasaahno oo aynu ka xaaqno oo aynu ka saarno waa laba arrimood oo isbarbar socda waxyaabo guriga lagu wanaajinayo oo lagaga dhigayo guri muslim iyo waxyaabo kale oo aynu doonay inaan guryaheenna aan lagu dhex arag oo sida mafiiqda xashiishka iyo qashinka loogu xaadho aynu doonayno inaynu guryaheenna aynu ka xaadhno oo aynu ka saarno oo aynu dibadda ka dhigno umuuraha la doonayo in lagu qurxiyo ama lagu wanaajiyo guryaha dadka muslimiinta ah waxa weeyaan waa taacada ilaahay waa dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa salaada iyo soonka waa akhrinta kitaabka ilaahay jalla wacala kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala abi hurayra radi allahu ta'ala abu muusa al-ash'ari radi allahu canhu waxau nabiga ka soo wariyay xadiiskan imaam muslim baa soo warinaye wuxuu nabigii alle sala allahu calayh wasalam uu yidhi مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت تصالها قرق إلهي سبحانه وتعالى لوحصايو الذي يذكر الله فيه إيوه قرق الذي لا يذكر الله فيه إيوه قرق أن إلهي لوحصو مقعيسا لوحصو هذا القادم إن الله جل وعلا أن لغحس مثل كوغ وحويان ومثل الحي والميت واصيدا وحنول يا واحد انتي قفلوا عقل له وفهم كرا فرقي وين او دحيا وحنول يا واحد انتي فرقي او دحيا وين نقانا قولي إلهي مقعيس لغو حصايو او قرآن لغو اخريايو او ذكري إلهي لغو هايو او إلهي لغو حصوصانايو iyo guri aan ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa lagu soo hadal qaadeen ee waxa ka socda hees iyo in hadal xun iyo waxaan ilaahay raali gelinayn farqiga u dhaxeeya waa farqiga u dhaxeeya wax nool iyo wax dhintay
واي نبي صلى الله عليه وسلم وحويري اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا صلاة تكنيسان بركة قريها كنت كذا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحوها صلاة السنة هي الرواتبته قري ده يكون تكنشري المساجد كم تكنشرين كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم وحنا برا يوليه الصلاة دي نبر كميدا وسنة لوجه ده قري وكنت كذا ولا تتخذوها قبورا قرينا قبور يا حبالها كدجينا ويا حبالها عن صلاة اللي قد يحتكن قري يروح حبالها كلنا نقن فرض كي رجي مركي قري مركي مساجد كوسو تكذان أي كوسو نقلان قري وإني صلاة دي بركة وإني كنت كذان صنياشي قريقة أو قريه سيدي قبور وكلا على النقل باي الأخوة يعني أجدد ماشي اللي قال لي وحويا وإن قريقي بركة لك كانوا أو قريق النقل قري يعني بركة إيه خير إيه وناق ودحيا له ولذلك يا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أي وحويري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أيا يقولي يا بني ويل كيجيو إن كيجيو إذا دخلت على أهلك فسلم مركز قريقا تصوغشو إذريركا وصوغشو فسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كله محل ولا شيء ذا النبي صلى الله عليه وسلم يقولي يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك هذه مركز يا بني النبي الرحيم نمدي ساق iyo sallallahu alayhi wasallam naxariista uu hayay dadka anasna wiil yar buu hayna yar buu ahaa yaa bunaya wiilkaygiyo inankaygiyo hadaad gurigaaga gasho hadaad ehelkaaga u soo gasho ehelkaaga markaad u soo gasho fasallim assalamu alaykum warahmatullahi deh qofka muumin dadka muuminiintana guriyooga inuu nooca noqdo ayaa loo baahay salaantan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maxay keenaysaa nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri yakun barakatan alayka wa ala ahli baytika adiga iyo ahli baytkaaga dadka guriga ku nool labadaba salaantaasi sharcigi waxa ay siinaysaa barakaduna waa maxay al barakatu al khayr al kathir alladhi la inqita'a fihi wa khayrka faraha badan in go'ayn waxa weeyaan caruurtiiba baraka keenaysa حاسكي با بركة خير بدن كيريسا رزقي جيني أيا بركة خير بدن يلنا أيا وأساسه كلويا ويا أيها الإخوة والأخوات يعني وحلونا هذا إن قريجي خير لجهره خير بدن إنه قريجي لجهره أيا لو جبهي رزق ونام إنه إله سبحانه وتعالى إنه ويدي سنو مركز لله إله ويرزاق أنيجي عرورتي دي حاسكي غير كيجا أما ده ولا المسلمات هي أنيجي زوج كيجا marka Allah leeyahay Allahumma arzuqni rizqiga ilaahay weydiisanaysa waa laba nooc sida culimadu ay tilmaameen laba nooc weeyaan sidana u fahan rizqun yaqumu bihi albadan wa rizqun yaqumu bihi alqalb wa laba rizqi weeyaan rizqi uu jirkaagu ku taagmaayo waa cunadii iyo cabitaankii iyo hugi iyo gurigii weeyaan rizqiga kalena ورزق يقوم به القلب ورزق هدي أنا قلبي وأنا هرين قلبي أما قلبي عذر قبون قرية حنصنايا أما قلبي ميت أو دنتيبون قرية لماذا مركز رزق قلوبتنا يعني رزق قلوبته وحويا أيها الإخوة والأخوات وإيمانك هي علمك النافعة ويا إيمانك هي علمك النافعة ويا كان أنتنا هدي قلبي جوايو إيمان صحيحة وسالم من الشبهات والشكوكة إيو هدي جوايو علم النافعة وحايها الإخوة والأخوات ماشي إيمان إيسا إنه قلبي النقضة قلبي أنا هين سيدي وقبهنا واي أنا عذر رضا قفك بالآدم كل عانا وعذر كل عاد شركة أمراض الأبدان هي عذر كدعاء أيها الإخوة قلوب تكدعاء أمراض القلوب قفك ممكن واحد لو قبع هي إنه مسائل شاسي إنه كتحدره ويسكيل عليه طيب
salaadan aynu yidhi waa in guriga lagu tukado aynu nebigu sala allahu alay wasalam uu yidhi salaadiina barkeed guryaha ku tukada fawaa'id badan baa ayuha alikhwa ku jirta fawaa'idaasi waxaa ka mid ah carruurtii ayay siinaysaa tarbiyad siinaysaa alaysa haakada carruurtii ayay tarbiyad siinaysaa oo markay carruurtii aragto aabbahood oo tukanaya oo salaaddii ku dhex jira oo qur-aankii akhriyaya waxay siinaysaa faa'iido badan ayaa ayuha alikhwa walakhawaat ugu jirta waay masalada labaad haddaynu nidhi arrimihii gurigu uu ku hagaagayay qaari waa arrimaha daacadda ah weeyaan iyo cibaadadii ilaahay iyo salaaxii iyo khayrkii taasina way fara badan tahay muxaadarada qaybteeda labaadna waynu ku faahfaahin doonaa haddii daacadaasi iyo wanaagga iyo khayrkaa guriga gudihiisa laga waayo markaa waxa weeyaan gurigi ma noqonayo guri mu'miniin noqon maayo ayuha alikhwa alkhawaat aynu u nimaadna imanka waxyaabaha la doonaayo in guriga laga fogeeyo waxaynu waxyaaba loo baahan yahay in guriga laga xaaqo oo laga dhex waayo guryihii muslimiinta arrinka koowaad waxa weyn waa in shaytaanka guriga laga saaro shaytaanka waa in guriga laga saaro limaada hadduu shaytaanku guryaha muslimiinta soo galo iskhilaaf baa ku dhacaya iskhilaafaan dadkii guriga ku noolaa barakadii iyo khayrkii ayaa guriga ka dhex baxaya shaydaankana waxaa guriga lagaga saari karaa ayuha alikhwa arrimo ayaa lagaga saari karaa arrimahaasi waxaa ka mid a sida nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan in guriga lagu akhriyo suurat lbaqara suurat lbaqara inaad guriga ku akhrido laa tajcaluu buyuutakum maqaabir nebigu sala allahu alay slam saasuu yidhi faina ashayطaana yanfuru min albayt aladi tuqra'u fihi suurat lbaqara subxaana allah laa tajcaluu buyuutakum maqaabir guryihiinna ha ka dhigina sida maqaabirta oo kale ha ka dhigina faina ashayطaana shayطaanku yanfiru wuxuu ka rooraa ou ka baxsadaa min albayt aladi tuqra'u fiihi suurat lbaqara guriga suurat lbaqara lagu dhex akhriyo shaydaanku wuu ka ordaa xadiiskan imaam muslim baa abi hurayre ka soo wariyey seebaa loogu akhriyayaa guriga suurat lbaqara dadka qaarkood ba waxay haystaan haddii cajalad c d la furo amaba record ay suurat lbaqara ay ku duuban tahay in maqsadkii la gudanayo laakiin ayuha alikhwa walakhawaat sida sheekh maxamed bin salix bin cuthaymiin raximah allahu tacaala uu tilmaamay waxa uu leeyahay qiraa'ada c d-da ah ama rikoorka lagu akhriyaayo maqsadkii ma gudunayso ee waxaa loo baahanya inuu qofku isagu akhriyo inuu isagu qofku laftiisu uu codkiisa ku akhriyo si shaytaanku uga baxsado gurigu uga baxsado wuxuu sheekhu tusaale uga dhigay uu yidhi haddii eedaanka haddii inta c d lagu duubo halkii masaajidada ay mu'adinadu ay ka aadaamiyeen c d-gaasun kolba la furo waxa maqsadkii la gudan maayo le waa cibaado sharciya weeyaane waxaa kaloo lamida buu sheekhu yidhi haddii khudbadda jimcaha halkii uu khatiibku iman lahaa ee isagu dadka khudbadda uga akhriyi lahaa haddii khudbad inta c d lagu sii duubo ama d v d lagu sii duubo dadku markay salaada jimcaha isku yimaadaan khudbaddaasi c d-ga ku duuban loo furo taasina maqsadkii ma gudanayso marka guryahayna aynu inagu ku akhrino codkeenna inagoo ku akhriyayna suuratulbaqaraha lagu akhriyo waayo nebigu sala allahu alay wasalam siduu inoo sheegaayo waxa weeyaan guryihiinna sidii xabaalaha iyo qubuuraha oo kale ha ka dhigina faina ashayطaana shayطaanku yanfiru wuu ka hordaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam uu leeyahay min albayt aladi tuqra'u fiihi suurat lbaqara guriga suurat lbaqara lagu akhriyo shaydaanku wuu ka ordayaa ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu leeyahay uuna baraya masaladaasi yaan lay dhaylsan waxa weeyaan waa cilaaj iyo dawo uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu ina baraayo haddii aad dareento in gurigu aanu wanaagsanayn oo ay khilaafaadku badan yihiin oo buuqa iyo qayladu ay guriga ay ku badan tahay guriga shaydaanka laga saaro qur-aankana ha lagu akhriyo
nebigu sala allahu calay wasalam waxaa kaloo waxaan u jeedaa abu hurayra radi allahu tacala canhu ayaa waxa uu leeyahay ina albayta aladii yutlaa fiihi alqur'aan guriga qur'aanka lagu dhex akhriyo ee ehelkiisu hooyada iyo aabbaha iyo carruurta intuba ay qur'aanka akhriyaan ay qur'aankii ay subcinayaan yattasicu biahlihi ahalkiisa wuu ku filaadaa oo cidhiidhi kuma noqdo wayakthuru khayruhu khayrkiisuna wuu bataa wataxduruhu almalaa'ika malaa'igtuna gurigaasi way soo xaadirtaa bal u fiirso saddex arrimood albayt aladii yutlaa fiihi alqur'aan beydka lagu dhex akhriyaayo kitaabka ilaahay jala wacalaa yattasicu biahlihi ehelkiisa ayuu ku filnaadaa oo cidhiidhi kuma noqdo wayakthuru khayruhu khayrkiisa ayaa bataa khilaafaadkaa meesha ka baxa heshiis iyo jacayl iyo iskraamayn iyo ismaamuus ayaa ninkiiyo xaaskiisa ka dhex dhaca carruurtu ma noqdaan carruur cuquuqul waalideyn ku dhaca maaha oo waalidkooga caasiya wataxduruhu almalaa'ika malaa'igtuna way soo xaadirtaa watakhruju minhu shayaaiin shayaaiintuna gurigaa way ka baxdaa wahada wa maxal shaahid guriga qur-aanka lagu dhex akhriyaayo shayaaiintiina way ka baxaysaa wa ana albayt aladii laa yutlaa fiihi kitaabu allah guriga aan kitaabka ilaahi subxana wa tacaala aan lagu akhriyaynaa yadiiqu biahlihi ehelkiisa cidhiidhi ayuu ku noqdaa wayaqilu khayruhu khayrkiisuna wuu yaraadaa watakhruj minhu almalaa'ika takhruju minhu almalaa'ika malaa'igtuna gurigaa way ka baxdaa wataxduruhu shayaaiin shayaaiintuna gurigaa way ku soo xaadirtaa waxyaabaha kale ee shaydaanka guriga ka saaraya ilan waxay waa shaydaankii guriga laga saaro weeyaan waa dikriga ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala nebigu sala allahu calay wasalam waxa uu yidhi idaa dakhala arajulu baytah fadakara allaha tacaala uma tanaawala طacaamahu fadakara allaha qaala shayطaanu liasxaabihi laa mabiita lakum walaa cashaa haddii ninku markuu gurigiisa soo galo uu ilaahay subxana wa tacaala xuso dabeetana uu cuntadiisa cuno oo markuu cuntada cunana uu ilaahay xuso qaala shayطaanu liasxaabihi shayطaanku wuxuu asxaabtiisa ku yidhaahdaa laa mabiita lakum meelaad caawa joogaysaan ood aad ku baryaysaan idiima aha walaa cashaa cashana kuma lihidin gurigan caawa gurigan ku baryi maysaan cashana caawa kuma lihidin gurigan maxaa shaydaankii guriga ka saaray inay cashadii cuntadii ay reerka la cunaan maxaa u diiday waa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala waaye faidaa dakhala baytahu hadduu ninku gurigiisa soo galo falam yadkur illaah aanu ilaahay xusin qaala shayطaanu liwliyaa'ihi shayطaanku wuxuu awliyadiisa ku yidhaahdaa adraktum lmabiit meelaad caawa ku baridaan ayaad hesheen fain akala walam yadkur illaah haddii intuu wax cuno aanu ilaahay xusinna qaala shayطaanu shayطaanku wuxuu awliyadiisa ku yidhaahdaa adraktum alcashaa caawa cashaad meeshan ka hesheen ilaahay muu xusin markuu guriga soo galay ninkii ee reerkiisii uu soo galay mar labaad markuu cunnada iyo cashadii cunay ilaahay subxana wa tacaala ma xusin taasi maxaa keentay in shayطaankii awliyadiisii ay gurigii ay ka dhigteen meelay joogaan meelay u hoydaan meel mabiid u ay ku baryaan iyo cunno ay cunaan bay heleen haddii laakiin ilaahay xusay markuu guriga soo galay oo cuntadii markuu cunaayana uu ilaahay xusay shaydaanku wuxuu ku odhanayaa laa mabiita lakum meelaad caawa ku hoyanaysaan idiima sugnaa iyo meelaad ku hoyanaysaan idiima sugnaa arrinka saddexaad ee shaydaanka guryaha ka saaraya wa an yakuuna albaytu macmuuran biالطaacaat beytku waa inuu noqdo beyt ku camiran طaacada ilaahi subxaanaه wa tacaala akhii wa ukhtii fi اllahi wa fi اlislaam shayطaanka iyo awliyadiisu ma jecla طaacada ilaahi subxana wa tacaala ma jecla way ka rooraan meesha ilaahay lagu xusaayo way ka caymadaan oy ka baxsadaan meesha ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudaayo qalbiga ku camiran طaacada ilaahay iyo dikriga ilaahay laa yumkin an yakuuna makaana lishayطaan aw lishayaaطiin suuragal maaha in qalbi ku camiran dikriga ilaahay iyo tilaawada qur'aanka iyo khashyada ilaahay
iyo rajaynta ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbi u hiloobaya cibaadada ilaahay iyo taacadiisa subxaanahu wa tacaala qalbigaasi shaytaanku u soo dhowaan maayo guriguna sida ibnulqayim ay yidhahdaan culimmadu waa qalbigoo kale weeyaan ibnulqayim wuxuu yidhi raximah allahu tacaala qalbigu waa sidii guri oo kale haddii gurigaasi intaa daaqadaha dariishadaha iyo albaabada aad u wada furto aanad waardiye iyo xaaris aanad u yeelin guriga ood kaga tagto dee gurigaa cidkiisa way soo gelaysaa tuugdii baa soo gelaysaa mooryaankii baa soo gelaaya daydaygii baa soo gelaaya homelesskii baa soo gelaayo seexanaya laakiin haddii aad guriga ixkaamiso oo dariishadaha iyo daaqadaha aad u xidho ood albaabada u xidho ood xaaris iyo waardiye aad u yeesho gurigii waa guri ilaalan weeyaan qalbiguna ibnulqayim raximah allahu tacaala waa saasoo kale ayuu yidhi qalbigu wuxuu leeyahay dariishadee daaqaduu leeyahay shaydaanka ayaa ku soo ataagaya oo ku soo hujuumaya qalbigaaga ilaasho oo wax walba oo qalbigaaga zayq iyo leexsan ku keenaya ka ilaali oo shaydaanka dagaal kula jir marka ayuha alikhwa alakhawaat waxa weeyaan guriga aan ku amrinayn salaad iyo taaco waxa weeyaan waa guri shaytaan u hooyanayo waa guri uu shaydaan ku baryaayo waxaan kaloo tilmaami lahaa in khilaafaadka faraha badan ee ninkii xaaskiisa u dhaxeeya qaylada faraha badan buuqa faraha badan ee dhinac ninkii aanu xaaskiisii aanu ixtiraamayn xaaskiina ninkii aanay ixtiraamayn oo waxay doonto ay kula hadlayso isaguna wuxuu doona uu ku leeyahay oo qaylo iyo buuq iyo nacdal iyo cay guriga ay taallo gurigaasi waa guri aan khayr iyo baraka lahayn guri khayr iyo baraka aan lahayn weeyaan dadka muuminiintana ayuha alikhwa alakhawaat waxaa looga baahan yahay inay guryahooga ka dhigaan meelo qulubta ay u soo hilowdo meelo lagu nasto meelo taacada ilaahay laga helo meelo ninkii iyo xaaskiisu intay soo wada fadhiistaan ay qur-aanka wada akhristaan intay riyaad saalixiinka ay wada furtaan ay carruurtan u akhriyaan guri taacadii ilaahay laga dhadhansanaayo xalaawadii iimaankana laga helaayo waay shaydaankii waa la saaray laakiin ayuha alikhwa waxaa jira waxyaabo shaydaanka guriga soo geliya ilaan ujeeddadoo dhan waxa weeyaan guryaheennii malaa'igtu ha soo gasho shayaadiintana ha laga saaro haddaynu nin shayaadiintii ha la saaro waxaa jira afcaal iyo acmaal iyo falal shaydaanka guryaha soo gelinaya waa maxay afcaashaasi waxaa ugu horeeya waa beenta waa xanta waa qiibada waa in dadka kale sharaftooda iyo acraadooda lagu xadgudbo waxyaabahaasi shaydaanka ayay soo ururinayaan haddii majlisku noqdo majlis cay iyo xumaan iyo qiibo iyo dad la nacdalaayo iyo dad xumaan laga sheegayo uu noqday gurigaasi iyo majliskaasi wuxuu soo jiidanayaa shayaadiintii waxaa kaloo ka mid a najaasta shayaadiintu waxay culimmadu ay leeyihiin waa arwaax khabiisa weeyaan arwaax xun weeyaan arwaaxdoodaasi khabiiskina waxay jeceshay najaasada ayay jeceshay sida malaa'igtu ay yihiin arwaax daahira ay yihiin طبعا oo ay jecel yihiin wixii wanaagsanaa shayaadiintu waxyaabahaasi najaasada ayay jecel yihiin guriga waa in najaasta laga fogeeyo oo gurigu noqdo guri daahira oo wanaagsan oo carfigiisu uu wanaagsan yahay oo wax ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraan yeelay oo najaasa waa inaan gurigii lagu arag waxyaabaha shaydaanku isaguna uu ka ordo ama waxaan u jeedaa shaydaanka guryaha keenaya waxaa ka mid a ayda iyo sawirada nebigu sala allahu calay wasalam xadiiska abi talxa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey nebigu sala allahu calay wasalam waxa uu yidhi laa tadkhulu lmalaa'ikatu baytan fiihi kalbun walaa suura laa tadkhulu lmalaa'ika malaa'igtu ma soo gasho guri uu ay joogo iyo suuradii sawir kolka aynu ikhwa alkhawaat yani sawirada khaasatan kuwa guryaha la sudho waa sawiro aan loo baahnayn waayo sawiradaasi aad guriga sudhay eed gidaarada wada saartay waa sawiro u diidaya inay malaa'igtii guryaha ay soo gasho
inay malaa'igtii ay guryaha soo gasho khaasatan waxa la yaab leh dad ninbaa sawirkii xaaskiisa iyo hablihiisa ama gabdhihiisa oo qaangaaray ayuu meel kasta guriga sulaya soo garan maysid laga yaabana in sawiradaasi xitaa dumarku aanay xijaab xidhneen rag baa iska soo galaya ajnabiya waa la iska fariisanayaa sawiradii baa la iska daawanayaa dhinac ahaan waa macsi weeyaan teeda kale sawiradaasi guryaha la dhigayaa waxa ay u diidayaan malaa'igtii inay guriga soo galaan malaa'igtii haddii gurigii soo gali weydo waxa ka baxayo yani shayaatiin baa gurigii ay hooy iyo mabiid ay u noqonaysaa ayuha alikhwa walakhawaat waxyaabaha aynu u baahnay in guryaha laga saaro ee haddii aynu ka saarno guryaheenna shaydaankuna ula baxayo waxa ka mida waa heesaha weeyaan iyo musiga waxyaabaha la doonaayo in guryaha muslimiinta laga saaro ee laga xaaqo ee laga nadiifiyo waxa ka mida musiga ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka waxa ku yidhi suuratu luqmaan wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiid liyudilla can sabiili illahi bigayri cilmin wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yashtari lahwa alxadiidi waay ku iibsanaya hadal dadka mashquuliya waa heesaha weeyaan waa muusigada weeyaan liyudilla can sabiili illahi si uu dadka uga leexiyo jidka ilaahay lahwa alxadiid hadalkaasi ilaahay cabdillaahi bni mascuud radia allahu canhu oo culimmadii saxaabada ka mid ahaa ayaa inoo fasiray waxa uu yidhi saddex jeer buu ku dhaartay uu yidhi inay yihiin heesaha lahwa alxadiid uu ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudilla can sabiili illah dadka waxaa ka mida qaar lahwa alxadiidka iibsada waa maxay sababtu waa liyudilla can sabiili illah waa si dadka ay uga halleeyaan oo ay uga dhumiyaan jidka ilaahay ibn cabdillahi ibn mascuud waa uu ku dhaaranaya waa heesaha buu yidhi imaam maalik raximah allahu tacaala ayaa muusigadii heesaha la weydiiyey wuxuu yidhi laa yafcaluhu cindana ila alfusaaq laa yafcaluhu cindana ila alfusaaq waa imaam maalik imaamu daar alhijra wuxuu yidhi heesaha iyo muusigada haddaanu reer ahlu madiina nahay waxa dhegaysta un kuwa fusaaqda ah waalfaasiqu huwa alkhaariju can taacati illahi caza wajal alfaasiq huwa alkhaariju can taacati illahi jala wacala waa qof ka baxay taacadii ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ayuha alikhwa walakhawaat muusigiina maanta waxyaaba badan baa wata combyuterkii baa wata tvgii baa wata cdyaa lagu duubtaa dvdaa lagu duubtaa in laga fogaado ayaa ayuha alikhwa walakhawaat waajiba waa khatar weeyaan muusigu iyo heesuhu nifaaqa ayay ku beeraan jidhka oy ku koriyaan nifaaqa ayay jidhka ku korisaa heesuhu iyo muusigu qofka mu'minkana waxa weyn waa inuu qalbigiisa ku camiro kitaabka ilaahay jalla wacala uu ku camiro gurigiisana taacadii ilaahay haddii waxyaabahaasi gurigeenna aynu ka sifayno waxaa kolkaa imanaysa ayuha alikhwa walakhawaat in gurigu noqdo guri aamina waxaan ku soo gabagabeynayaa qiso la xidhiidha heesaha iyo muusigada sheekh culimmada ka mid ayaa waxa uu yidhi safar baanu ku jirnay buu yidhi sheekh baa soo warinaya kolkaasi annagoo highwayga ku jirna ayaa gaarigii naga horreeyey ayaa accident baa ku dhacay dabeetana wuu qallibmay dadkii gaariga ku dhex jiray midkood ayaa markuu albaabkii furmay ila gaarigii uu isrogayaaye ayaa gaarigii dibadda uga soo baxay qoladaydii gaariga ka dambaysay wadatay ayaa waanu gaarigii joojinay waanu u tagnay dadkani markaa nin dhalinyar u ahaa ninkii dhalinyarta ahaa ayaa waxaanu xusuusinay markaanu garanay inuu yani cimrigiisii uu khaatimadii ku jiro yani waxa gaadhay dhibaato weyn baa gaadhay waxayna dareemeen ninkan da'da yar inuu dhimanayo saanu ku nidhi laa ilaha illa dheh yaa bunaya yaa ibni qul laa ilaha illa allah waa diiday xalku laa ilaha illa allah ka odhan lahaa wuu heesay hees buu wadaa waana ogtiinoo nebigu sala allahu alay wasalam
سيد الله قصه وريه حديث كمعاذ بن جبل أبو داود سوريه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قفك هذا الكيس أو قدام بيعكوها الله أنت آنور لمن أيتهي لا إله إلا الله دخل الجنة جنة أيو قلي يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم ويري نكي دليلتها هاي لمن أي دعوها أي كل بكل عليا لا إله إلا الله مر الله لمر كل لا إله إلا الله ده أو كل واق نروش على وجوه ختمه وهيسي وهيسي سيدو هيسي أي نفتك بحري لمنكي أمرك يركن يركن دنتي ويل كده ليرتاها أي جاريكي يدي بقول نقدين جاريكي مرك يدي بقول نقدين محاي لكل من مفاجأة أي لكل من أيها الإخوة والأخوات بلدجيست تنا مفاجأة لكل من واحد تهاي إن هستي وقادة أي مركو دبنا أي لفت هذه وكل جيسنا أي سي دي جاريكا أما عتلة جاريكا هست لفت هذه أيو دجيسنا أي أولي جاريكي كسي صعطها قل أيها الأخوة والأخوات يعني قلبه هدي وعادية شو هيصها هي ميوسيقى لمشهد مركي كنت معده وأنا اللحظات حرجة أو أضق إلى هذا ما أنتبه نوفل ذايو وحق قلبي يا عقلي كقالب نقول أيوحي وبرتي هيستاهد هذا الكحولها لكن قفك يصاغ أبرتي طاعة إلهي سبحانه وتعالى هي ذكرك إلهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله الحمد لله قراءة القرآن عرب كيسي وحا أتشل عاية إن ذكرك إلهي حصو وحنا الأورد شيرا يا مركو قفها سليمان عايو إن ذكرك إلهي سبحانه وتعالى وعرب كيسي وكقالب نغضو عموما أيها الإخوة والأخوات وحنا نبهنا هاي إن وحيابها إن صور شيقني قريهنا لغا حاقو قريهنا لغا صارو قريهنا ديبدا لغا ديقو waxyaabaha wanaagii taacada iyo cibaadada ilaahay taqwadiisana guriyaha la soo galiyo inta waxaan ku soo gabagabeynayaa muxaadarada qaybteedii hore qaybta labaad waxaan kaga hadli doonaa dadka guriyaha si degan sifooyinkooga dadka aynu nidhi waa dadka ku dhex nool guriyaha si aaminka ah ee nabadda ah waa maxay sifooyinkoogu waa maxay tilmaamahoogu wajazaakumullahu khayr Bismillahir Rahmanir Rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيبتي لبعض محاضرة ciwaankeygu yahay guryo aamina guryo nabada albuyut alaamina qaybtii hore haddaan dib u milicsado waxaynu ku sheegnay muqadimada marka laga yimaado laba nuqdadood oo aad iyo aad u muhiima labada nuqdadood waxay ahaayeen in guryaha la doonayo inay noqdaan guryo aamina oo nabad ku dhisan inay noqdaan guryo ku camiran taacada iyo taqwada ilaahay jalla wa ala nuqdada labaad waxay ahayd in guryahaasi laga badbaadiyo oo laga saaro wax walba
oo ka soo horjeeda taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo taqwadiisa wax waloo lid ku ah marka labada arrimood waxay la xidhiidhayeen in wax walba oo guriga gudihiisa yaalla ee alaab iyo qalab ah in loo adeegsado sidii loo xaqiijin lahaa taacada ilaahay taqwadiisa cibaadadiisa loogana dheeraan lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in la caasiyo in amarkiisa laga hor yimaado qaybtan labaad haddaba ee muxaadaradu iyana waa muhim waxa ay ka hadlaysaa sifooyinka dadka ku dhex nool guryahaasi nabadda iyo amniga leh inaguna haddaynu nahay dadka muslimiinta ah rag iyo dumarba aabbayaal iyo hooyooyin iyo carruur intaba waxaynu doonaynaa inaynu ku dadaalno sidii ay innaga lafteennu aynu noqon lahayn dad mutaystay barako uu ilaahayna siiyo khayr iyo liibaan iyo sacaado waayo ayuha alikhwa walakhawaat sacaadada iyo liibaanta waxaa lagu helaa taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala shaqaawada iyo hoogga waxaa lagu mutaystaa iyadoo ilaahay la caasiyo iyadoo awaamirtiisa laga hor yimaado iyadoo xuduudda uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jabiyey xuduudda ilaahay uu dejiyey la jabiyo qof yow bani aadmi ama rag ha la ahaado ama dumar ha la ahaadee yaan marnaba lagu riyoon in sacaado iyo liibaan iyo xasilooni nolosha adduunyada lagu helo haddii ilaahay la caasiyaayo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa laga hor imanayo haddaan awaamirtiisii la fulinayn haddaba aynu gudagalno sifooyinka ay ku sifoobeen dadka ku nool guryahaasi aaminkii waxaynu hore aynu u soo sheegnay ayuha alikhwa walakhawaat in waxa guryaha muslimiinta ka soocay guryaha dadka kale aanay ahayn dhismahooga guri ballaaran oo qolal badan oo furniture wanaagsan uu yaallo cunto wanaagsan lagu cuno taasi muslim iyo gaalba waa ka siman yihiin qof faajira iyo qof mu'mini labaduba way ka siman yihiin oo mu'minku iyo kaafirku labaduba waxay ku noolaan karaan guryo waaweyn qolal badan alaabo qaali taallo laakiin guryaha muslimiinta waxa soocayaa waa sifooyinka ay ku sifoobeen dadka guryahaasi ku dhex nool waayo ayuha alikhwa walakhawaat waxaa laga yaabaa inaad aragto dad aan mu'miniin ahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala taacadiisii aan xaqiijin oo ku nool guryo waaweyn oo qolol badan oo qaaliya oo qurux badan laakiin iyagu guryaha gudahooda ama dhexdooda waxay dareemayaan sidii ay qubuuro iyo xabala ay ku dhex nool yihiin qalbigoogu ma faraxsanaa niyaddoodu ma wanaagsanaa waxaa laga yaabaa in intaasoo cudur oo nafsaaniya inay la tawaawacayaan oo dhib iyo hagardaamo uu ku hayo gurigaa ballaaranna aanu u soo hoyn ama aanu siin farxad iyo طمأنينة iyo xasilooni waxaa dhinaca kale aad arki kartaa qof muslina oo gurigu ku nool yahay uu yar yahay guri yar oon qaali ahayn oo qololkiisu aanay badnayn laakiin uu ilaahuun og yahay subxaanahu wa tacaala raaxada iyo طمأنينada iyo sacaadada iyo liibaanta camiraysa quluubta dadka gurigaasi ku dhex nool farqigu waa maxay ayuha alikhwa walakhawaat farqigu waxa weeyaan waa taacada ilaahay taqwada ilaahay awaamirta ilaah lagu dhaqmaayo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo guriga gudihiisa lagu akhriyayo walidaalika ayaa ibraahim ibnu adham raximah allahu tacaala nin zaahida ayuu ahaa
وكيلها لو علم الملوك وأبناء الملوك هذه بقرة يا عرورته بقرة أيوجهين ما نحن فيه من السعادة سعادة يلي بانتا أن كنا الله هاي بقرة يا عرورته هذه أيوجهين ما نحن فيه من السعادة حوج أي نقصه تشوم لهاين سي أي ليبانتا سي سعادة سي أي نوغا قاد الله هاين سعادة أيها الإخوة والأخوات لعقلكم يبسدوا سعادة أيها الإخوة والأخوات ما هو مادية وأنت تكتو استوداد السوبر ماركت أدونك وقالسا عاد مقرن ساعد كريدت كارد يلا عقد كسو يبسن السماحة هذه ساعة الله هيد لمن كغيادة يتجارته أي أود لها لكن سعادته ومنحة من الله جل وعلا عطاء من الله تبارك وتعالى وضيق إيو سيسمو إلهي سبحانه وتعالى حقي سكتي ماذا وحانا لقوه لا وإن إساق الله أطيعه أو أمرتي سلا إلاليه إساق الله عابده هذا قريها النعمة داسي إلهي وكم النايستي dadka ku dhex nool ayaynu sifooyinkooga aynu dul mari doonaa in sha Allah ta'ala الصفة الأولى صفة ugu horeeya waxay tahay in dadka ay yihiin saalixuun mu'minuun inay yihiin dad saalixiina oo mu'miniina bimaana iimaankoogu waa iimaan saadiqa aamanu bi rabbihim oo arkaan iimaankii ay xaqiijiyeen إلهي سبحانه وتعالى أي رميسيهين إنه يسوي هاي خالقوجا إنه يسوي أبورتي إن إساقنا أقولنا قندونان مركز الإنتان كذب ولذلك وحمروا الباقي حسوسيهين عقابتي سنوي كبقريان يخافون عذابه ويرجون رحمته إلهي سبحانه وتعالى عقابتي سواء ويكبقريان أو يكعب صنيان رحمدي سنة وأي رجينيان تاسي محي كل فساء أدي قفك مؤمنك اعتقاد سيئة إلهي والرحيم وأنا شديد العقاب في نفس الوقت كو إساق كعب صدي أوامرتي سإلالية إلهي سبحانه وتعالى وأنه حريصنا إياه كو إساق عاسيي أوامرتي سجبيي حدودي سكوحد قدبنا إلهي سبحانه وتعالى وعقاب إياه تاسي أيا كو كلفتي إني حدود إلهي سبحانه وتعالى إلاليان هذا أوفر صاحب الإخوة والأخوات هذا أعبطهاي أما هويتهاي قرق قدهيسا ميات كو إلالي سيحوين أحكامتي إلهي دعاء معاصرين تعاهمد كمذا حسن الهضيب أيها عوام في الأياء وحاويري أقيموا دولة القرآن في قلوبكم تقم في أرضكم أقيموا دولة القرآن دولة الإسلام في قلوبكم دولة إسلام كا دولة شريعة وحكو حكومة إساء أرد بالقلوب تينا كدح أوغا إلهي سبحانه وتعالى هدات سلا يشان ويحينكو أرساق الدولة إسلامة وشريعة يسنها يدين وحكو حكومة إساء ويدين استاكا إنغنا أبيه هو يدو وإني حسابيان قريقا قديه ما يهي الدولة الإسلام وير ما يهي قريقو ما يهي قولة إيا مجلس مركز خلافه لو نقضى شريعة لو نقضى أحكامته إلهي لو نقضى دينته هي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم مسوى ميل أن لقى احترام الحدود إلهي أن لقى احترام سنة رسولك صلى الله عليه وسلم هذا بقى ذلك مؤمنين تا صالحين تا يقولها كل حنولي بعد التوحيد والإيمان بالله جل وعلا إيمانك إلهي الرميين التوحيد كحقيقيا كذب عملك أقوين أي إلاليان والصلاة الصلاة وما ملك لأيمانكم نبي صلى الله عليه وسلم مركي ولبنا أي وقصي درداري مؤمنين تا كوي لا تشوغي يكوي كدن بيبه إنه كميد بالمهي والكاسي صلاة إلا إلاليو وآبها يهو يدو وإن أنا رالي كنقون إن قرقوا يهي قرق أن صلاة اللقوء يجين
qofka salaada dayaca acmaasha kale islaamkaana wuu dayacayaa qofka salaada xafida acmaasha kale ee islaamka wuu xafidaya ayuha alikhwa walakhawaat iminka waxaan ku jirnaa waqtigii samarka ayaa soo socda salaada subax waxay ku rooraysaa ilaa 3 barka habeenimo 3 barka noqonaysaa ama 4 iminka Seattle salaada subax 4 aroornimo laga tukadaa cishihina 11 habeenimo ayuu tagayaa waalidiinta waxa kamida qolooyin iyagu yiraahdo caruurta salaada maqrib iyo salaada cishaa ay si raaciyaan way sugu karimayaan salaada cishaa aroortina waa xilli hore oo caruurtii salaadii u ku cilmayno ayo la khalaqad hada khata wa arin qalad weeyaan oo xaq khilaafsan waxa jira dad salaada cishaa iyo salaada maqrib isku dara waayo inay hore u seexdeen bay doonayaan aroortana way shaqeynayaan arrimahaasi ma banaana haddii guriga la doonayo inuu noqdo guri aamina oo nabad leh oo barakaad iyo khayraad iyo sacaado lagu dhaxelo arrinka ugu horeeya ee waalidku loo baahan yahay ku dadaalaan waa salaada weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu yiri fawaylun lilmusalliin هو waxa uu sugnaaday kuwa musalliinta ee tukada alladina hum an salatihim sahun way tukanayaan laakiin salaadoodii bay hadana ay ka sahwiyaan oo hilmaamayaan culimadu waxay ku fasireen qaal ahlul ilmi culimadu waxay yiraahdeen hum alladina yuakhiruna as-salata an waqtiha kun ilaahay uu leeyahay subhanahu wa ta'ala fawaylun lilmusallin هو waxa uu sugnaaday kuwa tukanaya salaadii way tukanayaan laakiin الذين هم عن صلاتهم ساهون صلاتي أي وقت يجي دب وقدقيان لو بعدين قفهم ممكن صلاة ودب وقدق ووقت يجي وكسره إلهنا جل وعلا أيها الإخوة والأخوات صلاة والبوح يحدد وقت بيحدد مركا دتك سجريها نبضة آمن كأكنول ودت صلاة حفظية يجو الآباء والأمهات وحفظيان عروتينا ويكون قيان أو وحكبر بارينيان صلاتي وأيها الأخوة والأخوات يعني آباه يهو يدو وإن يقادان عروت أيوباهيهين قدوة ومحي القدوة دو القدوة وكدايشو المها غيري بروا كوريا كوري وكتك دونا نمبو نقون دونا إلانتنا أما قبرتنا ولا قرسن دونا لكن أذيقو انت أي كلات شوغان إلهي سبحانه وتعالى وحكسيي فرصة ذهبية وفرصة ذهبية قل عاقل لقو يبسن كرين إن هذا النقطة قدوة عرورتي أي كود ديدان أبيه وقدوة النقطة ويدي أي قدوة النقطة صلاة وينك هاك ديدان عرورت أركا يا أبهود وأرور والبا إساقو دالن انتو كعو ويسيستو مساجد كتاقايا أيها الإخوة والأخوات يعني درسك هي تعليمته أي عرورته أي تصارها سكبرا نساماها من القياس كرماها من القياس كرماها واي صفة صدحات أو حمد كذا صفة لباد إعداد كاسي وأنهم حافظون لجوارحهم جوارح ده أي معصية إله سبحانه وتعالى كير علينا وعندها وحمانكم إيجان دجاها وحمانكم مقلان دعمها وحمانكم تابتان لجوهها وحمان وقوم صعبان بمعنى الكلمة ودد جوارح ذودي إلاليي يحافظون حدود الله عز وجل في السر والعلانية حل والبا وحي إلالينا يان إن أوامرت إلهي تصالح أو كرهدان أنني بحيو طبعا أنا واحد ذلك كلها لها تيفي ينقريها لكيني أو أساسي ويان تيفي وما فينا هيسكا كيني نقريها تيفي لكن هدي لقوي أدي ابتلاك كون نقطي والنفط هذه أي ضعيفتي وحويا عرورت هذا كتر بيده إن أنا وحن أنا تيفي أنا كأرك ومثل كيو كله هدي الماء يكو أركو أدو تيفي غرفة ديا أدات أبيه تاي أو دمر أي كسب حيان تيفي هدو كو أركو أديكو إسكت دعوايا وحويا wrong signal وحويا رسالة خاطئة أياد الماء يصير إسا وهي علمه أبها أدبو احترامه
hooyadana aad buu ixtiraamaa marka aabaha in wiilkaagii ama gabartaadii markay ku arkayaan adigoo TV ka hor fadhiya oo kullu ma haba wadab aad ka daawanayso oo ma garanaysaa waxa weey ilmihii tarbiyad fiican ma siinaysid hooyada lafteeduna waa sidaa laakiin haddii uu ilmaha ay ku arko adoo TV hor fadhiya laakiin marka ay suurad xubi TV-ga markay ka soo baxdo uu ku arko ama indhaha laabanaya isagana aad ku tiraahdo ha eegin ama inantaadii iyo gabartaadii aad ku tiraahdo ha eegin waxa weeyaan waa tarbiya weeyaan hada usluubun min asaaliib tarbiya waa barbaarin fiican oo wali waxaad ku barbaarinaysaa waa barbaarin iyo tarbiyad camaliya weeyaan waxaad ilmihii tusaysaa in jawaarixda la ilaaliyo waay haddaba طبعا jawaarixdii way badantay laakiin waxaan tusaale ahaan aan u sheegi lahaa oo waliba aan xoog saari lahaa inay mu'miniinta guryahaasi aaminka ah ku nooli ay yihiin waa kuwa furuujtooda xafida طبعا ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu waladiina hum lifuruujihim xaafiduun mu'miniinta xaqi waa kuwa furuujtooda xafida weeyaan oo zinada ka fogaada isla markaasi muqaddimaadkii iyo waxyaabihii hordhac zinada u ahaa lianno aragu waa zinaysanaya dhagtu way zinaysanaysaa afku waa sinaysanaya gacantu waa sinaysanaysaa faaxishada weyna qofkii ku dhacay walciyaadu billah marka haddii wax xumaana oon ku banaaneen aad eegto ama aad fiiriso waa zina weeyaan haddii dhegta aad ku dhagaysato imanka waxaa jira yani telefoonada waxay iska noqdeen wax aan qaali ahayn rag iyo dumar telefoon iskala sheekaysanaya ayaanu maqalnay maraykan gudihiisa oo inta khad la soo galo ayaa in jamaaca min الرجال والنساء oo walciyaad billah xitaa mararka qaarkood ay dhici karto inay yihiin dumar rag leh oo la qaba iyo rag xaasasli telefoonka habeen oo dhan lagu sheekaysanayo وهذا لا يجوز لأنه يا الإخوة دكت نينكو ومعانسانيسا شيكذا يحاساوها هوينيدا هوينيدونا دكتيدي ومعانسانيسا هذا الكي يحاساوه هي شيكذي نينكا خاصة هدي أنا التقوى إيو إلهي كعبسي أنو ميشي أولين قلت واحد اللوبة هي إن جوارح دي لإلاليو زنادا يوحي مقدمات كيغا هيد لغا إلاليو وعن تلمام الهايو الإخوة والخوات خاصة dadka xaasaska isqaba waxa ninku xaaskiisa waa inuu ilaaliyo oo xuquuqda in reerka ee dhinaca jimaaca iyo galmoodka waa inuu ishbaac u ka siiyo xaaskiisii waayo waxa weeyaan haddii aanu xaqeegiisiin waxa laga yaabaa inuu ku kalifo waxyaabo xumaana haddii aanay taqwad iyo salaax aanay haweeneyda aan lahayn haweeneyda muslimadina waliba aad baan arrinkaa uga digayaa waad ogtihiin bay-ada lagu nool yahay waa bay-a xun muqrayaad iyo fitan badan baa yaalla marka walaasha muslimadda ee la qabaa ee ninkani ninkeyga waa inay ka saacido sidii ay raqabaadkiisa yani jinsiga ah iyo galmoodka ay u ajiibi lahayd walaa xayaa fi diin yani in layskula yaabo maaha laa xayaa fi diin diintu xishood ma laha waayo waxaan haddii walaashii muslimadda ahayd ay ninkeygii xaqeygii dhinaca firaashka ay siin weydo waxaa laga yaabaa inay fitno badan u geysato iyaduna ay sabab u noqoto inuu xumaan iyo zina uu ku dhaco walciyaadu billah marka ninka iyo xaaskiisu waa inay iska kaashadaan oo iska caawiyaan sidii dhinaca firaashka iyo galmoodka ay magaranaysaa ay xaqooga isku siin lahaayeen waayo galmoodka iyo jimaacu waa maqsad min maqaasid الnikaax saa weeyaan sifada afraad ee guryahaasi ay ku sifaysan yihiin waxay tahay waa yatacaawanuuna cala albiri waالtaqwa waxay iska kaashanayaan taqwada ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo taacadiisa ayay iska kaashanayaan iyagoo ku dayanaya oo fulinaya amarka ilaahay subxaanaه wa tacaala وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى إسكا عاوية وإسكا كاشادة برقة إيو تقوى عبسيد الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا هيسكو عاوننا على الإثم دنبي إيو العدوان إيحد قدب وراشا مسلمة دي ولالك مسلم كأي قري آمنة
ومطمئنة دوني إن اللسان وأن أرنك حسنادان walaasha muslimadii waa inay ku adeecin ninkeega inuu xaraana sameeyo oo ninku guursado oo kugu yiraahdo xijaabkan iyo niqaabkan iyo waxaan macna lahayn iska saar nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku barayaa oo ku leeyahay la taa'ata li makhluuqin fi ma'siyati al-khaliq ina qof bila aadmi aad ku ateecdo wax ilaahay xarimay ma banaana walaw kana zawjan walaw kana aban walaw kana ibnan كائنا من كان وحد دونها النقضة أما أباها أما الزوج كاجا أما عد دونها النقضة أختي المسلمة المؤمنة وكحران إن تقاطع عضو صدق له ننكو إنه حاس كيس حمان قاطع معها جر كان دير دمر كقاربة وحيرانا يان أنا متشعلين إنك يقولوا قدير يشوا وانكتوا يقضوا جر كان دير مقرن سا سيدا كانوا بحي مركاني كانوا يسكحيروا سو قرن ميسين taas waa qalad weeyaan waxa laga yaabaa inay haweenka qaarkood inay ninka ay furaashka ay la tagto ay diido laana uu gadheeri walaad billah taana waxa si siyaadinaysa islaamka qarbiga iyo islaamka galbeedka iyo kuwa dabadhilifka oo caalam islaami oo dadkii nacsiyay suurada nin gadheer ma garkeeray gaabanayna la qorqoray maaha garka dheer ee la taaban suuradaasi waa la nacsiyay dadkii muslimiinta ahaa walaad billah لكن أيها الأخ وأيتها الأخت وأنا حسوسنا الصورة داسي وصورة دي نبي قاويا صلى الله عليه وسلم نبي قو قديرة حديثنا ويكسو قنطعي وأنا قلت مركي صحابة الوديي أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر صلاة عصر يا صلاة الظهر وان صلاة جهرية هين أي كل هذين قرين كتابعين نبي قميو قرآن خريجري هذا يرهد الحديث في صحيح البخاري في كتاب الصلاة صحابي محوق جوابي هابو يري سالوا يقولوا أسدكوا قرنيسين إلى صلاة جهرية ما هي ويحير بالضراب لحيته قركيس أي ساء الروح مجري أو دقائق جري لقرن يرى القروحة كان مقرن سالوا لقوا داي ما قد دقائق يا ما روح مايا إرجع الروح ما يوا قد ديرويان وصورة دي نبي قال مركا ولاش مسلمات دي إني نينك كنا على قد دير معها ولالك مسلم كيلو حاس كيس حجابيا نقابيا دشرير إنه كنا معها عموما وحويان وحيسكو كاشانيان البر والتقوى أو يسكو كاشدان على الإثم والعدوان وحضنا هذا نبي صلى الله عليه وسلم سيد حديث كإمام مسلم وعائشة كسوري عائشة واحد لذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل نبي صلى الله عليه وسلم هبين كي قيام الليل أيوك عشري فإذا أوتر مركو الصلاة وتري قوتو كدو قال وحورنشي قومي فأوتري يا عائشة سرك عائشة أو أدونا إن صلاة وتري قوتو مركو هذا ساسو نبيكو وحاس كيس عائشة رضي الله عنها وخيرك ولك على خيرك أيها لك على سيد نفتي سخيرك ولك على أيها الإخوة والأخوات وأرنكي نبي صلى الله عليه وسلم walaalka muslimka iyo walaasha muslimada isqabaana iyaguna waa in khayrka saa iskula kaashadaan oo ninku waxaaskiisa salaada iyo hadii maalinta isniinta iyo khamiista uu soomayo uu yiraahdo waa khamiis iyo isniin ay wada soono ama ayaamul biidka ay dabeetana ay guriga ku wada afuraan riyaad saalixiinka ay wada akhristaan salaada duhada ay xusuusiyaan yani adkaaru noom ay xusuusiyaan adkaaru sabaax wal masaa وهكذا ay noqdaan laba qof oo aanay xayaato maadiya ama xayaato iyo nolol material oo kaliya aanay kulmine waxa weeyaan waa dad isku kaashanaya taacada ilaahay taqwada ilaahay cibaadadiisa rajeynayana sida adduunyadan ay ugu wada noolaadeen aakhira ilaahay subhanahu wa ta'ala jannooyinkiisa uu ku kulmiyo darajooyinkoodana uu kor u qaado nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska abu hurayra waa xadiis la yaab wada maqasheen riyaad saalixiinka wadigateen والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته رحم الله إلهي ونحرسته رجلا قام من الليل هبينك أوكا صلاة الليل وفصلى تكدي وأيقظ امرأته دبتنا التوسي حاسكيسي بريك فإن أبت هدي أيدي يكع ويدي نضح في وجهها الماء وجهك بيك قصيري وانين هبينكي
isagii xaaskiisa waa iskarab jiifaan waxa weeyaan khashada ilaahay taqwadiisa kicisay oo furaashka ayuu ka kacay deetana salaad buu kacay oo waa tukaday reerkiisina waa kiciyay xaaskiisa haddii ay diidayna fa in abat nadaxa fi wajha almaa wajiga ayuu biyo yarsa ugaga saydhiyey ورحم الله امرأة إلهي ونحرسته هويني قامت من الليل هبينكي كعضي فصلت دبيتنا تكتي وأيقظت زوجها ننكيجينا صلاة وكعسي فإن أبا هدودي ذو نضحت في وجه الماء يدنا وجهه ننكيجي بيكسيدي أي الأخوة بالطاولة هذه المعاني الجميلة وحوين ومعنى آذن قرح بدن أو تصايا سيدة دتك قريها سيكون نولي أي سكوك عشان أيان يعني إن طاعة إلهي يتقوى إلهي ين الله سبحانه وتعالى لعابده ولذلك أيها وحكمدها إن ددخل مؤمنين تا صالحين تا دعاء ذا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سورة الفرقان في أواخر سورة الفرقان ربنا عباد الرحمن ويان دعاء ذا محاكم ذا ربنا إلهي ربك يو هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إلهو حاسسك يغا إيو ذرياتك يغا إلهو نغسي قرة أعين وحن دها يغو أي كقب بسدان أو يكدو بسدان وجعلنا نغيل للمتقين متقين ترى إمام نغيل أيها الأخوة النعمة أقوين من نعم الله جل وعلا على عباده في هذه الدنيا النعمة أقوى وين إلهي ودومي سيسيما حاكمضة وأن إلهي كسيس زوجة صالحة وإلهي عابديسة وإلهي أسوميسة وإلهي درتي كوه احتراميسة إيه إن إلهي كسي عرور ونعكسن وإلهي عابديسة ولاشا مسلمة دعاه نعم كوجوه وين إلهي وسيه وحكمها إن إلهي سينن صالحة أو تقية وإلهي كعب صنعيه ورهبين كي أفرت هبين نمو الباب كوسا قراعي لسوق صخرانسن سو قرر ميسيد ونعم إلهي ويان مركا ساسي ددك عباد الرحمن يكون عيسان وجعلنا للمتقين إماما مؤمنين تنا إمام متقين تنا إمام نوغير وحي علمدوا الهدين نقتدي بمن كان قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا أنه أن قد ينكوين يقول رأي مؤمنين تها أننا ينقض إذا المؤمنين تقلا شهيدا إيمان إيسا دور تصالح أيانا وحين كتبنا ما بيسادتك مؤمنين تي أيسكو ساعدي ترين الرمهاسي ابن الجوزي أيا وحو سورين أيا ريح القيسي نينكاسي أيا وحو قورسدي هويني بو قورسدي دا تنا وحو دونا بل إنو يسكتي جابيو هويني دي نسيد عبادة تاي إلا يعني من قياسكو ساسوها حاسكاغو مع عبادة بدن تاي نينكنا نقورسدي من نين عبادة بدن با ساسا لسكو قياسي جري ضدك ورا صالحين تاها marka waxa uu yiri uu seexday habeenka oo baluu eegaya sida habeenka uu kacdo xaaskii salaad ay u kacdo rubcu leelkii ayay kacday salaadii way kacday suma naadatu isagii bay u yeedhay tiro qum ya riyah faqala aqumu u kacbay tiri salaada qolkaas ruwan kici doona deetana hadana rubci kale ayay u yeedhay ya riyah qum salaada u kac siin waan kici doona umuuman rubci ugu dambeeyay habeenka markay uu ahaa ayaa waxay ku tiri qum ya riyah faqala aqumu wa rubca ugu dambeeyay rubci ko reey weeyaan waxay ku tiri madal laylu wa askaru almuhsinun wa anta naimun layta ash-shi'ri man qarrani bika ya riyah atiri habeenkii waa dhamaanaya dadkii muxsiniinka ahaa geedigoogii waa socdaa oo qiyaamul baa loo taagan yahay xilligan wa anta naa'imun adna wad hurda riyaahow layta shi'ri man qarrani bika ya riyah cidda igu ka dagtay waa ayo ninaan habeenkiiba salaad u kacayno iska jifaawun cidda ii qarisay waa ayo qaala wa qaamat ar-rub' al-baaqi habeenka rubci ugu dambeeyana qiyaamul bay u soo jeeday waa gabar saalixada ahayd الربيع ابن خثيم تابعي آد عاقبة ورهب أيها وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب كيسي أردقيسي وأنك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك هذه رسولك إلهيك أرك لها
وكجعلان لها الربيع قصوي بدن بولها عدا وحا نين صلاة بدن أيوها هبينكي آدو تكنشري إن أنتي سيبا وحي كتري مالي وحي تري يا أبتي مالي أراك مالي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام يا أبتي أبو مالي أرى الناس ينامون محان واركا ددكم يا هبينكي أي سيحان أيان وأنت لا تنام أدوغنا أردو سيحانين وحيري إن أنت يدي أبها وحكبقني على مشهد إن دي مشهدو سكدا أي وقتما دو أيوة أبها كبقني بل واحد يكتر أيها الأخوة الأخوات يعني تربية دا وراكسني مسجك هي الرسالة دا قالقة أي إن أنت هسي أبيض كو أكوريسا أركي سيسوه هبينكي سيأتو كنايا وسيدا أويايا أثرك أي الرادك أي كقدقيسا ومحي waxaad ka u qiyaastaa aabayaasha habeenoo leyl habeenoo dhan TV saa hor fadhiyo kolba channel rogaya ama internetka hor fadhiya ee waxyaabo xun daawanaya ee caruurtoodiina ay og tahay inuu aabe xumaanta ku dhex jiro adigu waad aragtaa farqiga u dhaxeeya qisadaasi in al-Ghazali ayaa Ihya Ulumuddinka ku sheegay al-Dhahabi ayaa siyarkiisna wuxuu ku sheegay waa taqaanaa qisada Saciid ibn Musayyib سيد التابعين أيها يكوي لما كيقول علم التابعين تا إن ليري آد بيقرح بدن يبو أقرح بدن أو علم بدن آد علم بدن آد تقوى بدن أيو داي إن أنت ما وحكى صوت دوري عبد الملك بن مروان وخليفة كي مسلمين تاها أيو دوري إن كيسبوا صوتاني الوليد ابن عبد الملك مركز سعيد رضي الله تعالى عنه ودي وحرسين مايو عبد الملك ابن مروان إن أنت يدو إن أنت إذا سين معي إن كاجا الوليد وحوجي كذب أي أرديدي سميت كميلها ولو نشري ابن أبي وداعة نين فقيرها أيو جوري إن أنتيسي إن أنتي ودي ذي خليفك إن كيسي أيو مسكين أرديدي سكميلها أيو جوري مركي هبيك الله أراسي أروني مدي أيا إلا نوحها حرت سعيد بوهاي أنتو جويسي سوقاتي أيو يصير بح واي حاسكيسي يا سعيد أيا جوي سوتشي دويتري صوفريصو وعيكوتري إلى أين حاجة تجيسا قال وحيري حلقتي علمك يا سعيد أيان تجي يتعلم العلم سان علمك وصوبرته سيكوتري اجلس فريصو أعلمك علم سعيد رحمه الله تعالى أنا علمك سعيد حلقتي سوت كم مرنته علمك سعيد أنا كبر هاي صوفري سبيتري فجلس فعلمته ده تنوي برتي وأذكر كرتايو الأخوة سيدا خير كايسكو عاونيين ايسكو كاشنيين واي صفه شناد وحويان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تاسو بيسو ugu daba jirtaa marka guriyaha dadka muslimiintii waa inay noqdaan guriyo khayr kala isfaro wanaagana la isku diido hadii guriga xumaan lagu arko xumaantaasi waa in la bedelo weeyaan aabuhu waa inuu bedelo hooyaduna waa inay bedesho soo garamaysin hooyadu haday aragto sida dumarka qaar kood ka dhaca aabihii oo hablihii toosinaya xijaab wanaagsan ma xidhanaysaan dharkan aad dibada ugu baxaysaan ma qumana sidan aad u socotaan si haagsan ma aha ama inamadiisa iyo wiilalkiisa uu toosinayo inay hooyada tira carruurta faraha ka qaad carruurtana la hadlin carruurta arrin aan loo baahnayn aabaha laftiisuna hadduu arko hooyadii oo ku dadaalisa inay carruurtii xalaqadii masaajidka keenayso oo cajaladii quraanka u keenayso inuu carruurtan ka daawaxan anoo shaqeeyaane xijaabkan xidhayin waa maxay taasna waa ma banaana waxa loo baahan yahay in al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar la isku kaashado taasi ayaa loo baahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha ahlkaaga salaada far oo kuna sabir korkooda wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alayha waltakum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هاي كم من نقطة أمد يدعون إلى الخير تذك خير كويرة ويأمرون بالمعروف وناقوا فرايا تذك يغلس فرايا وينهون عن المنكر حمانتنا نهيا وأولئك كواسنا هم المفلحون يقاكوا الليباني هذه كل قالوا قديسة أنا خير كفرين تذك كل شوقي وأنا خير كوجيرين وأنا حمانت النهيين طيب كيف سيبك كل عكتين أدتك دي بدر شوقة أد خير كوجيرنا ودونا قفرته أد حمانتها أدوديدو
الأولى وحا لقاقبها هي إناد خيرك قرقاق أدكا لستو ذلك قرقاق كوغنا النول إناد وناقا فرطو الحمانتا أدودي دعيا لقاقبها هي النبي صلى الله عليه وسلم مركو أركي حسن بن علي رضي الله تعالى عنه وحبت تمرة وتمرتي صدقة لو أريها أيو أفقو يسرق شو نبي قودي دي وحكوي أما علمت ما أنا يقول بيجري أن لا نأكل الصدقة إن أنا صدقة عنين أما أنا صدقة حلال نوعين وإل ما يربو أيو حسنها تمرت له حقوق الضمي تمر ميل تعالوا صدقة لو أريي أيو يسرق وافق شو نبي قودي دي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وحكوي ما أنا يقول إن أنا إنه تمرت عينان عنين هدين مقرنسا عليه حلال نوعين وهي حسن من بني هاشم أيها من بني هاشم غير بني هاشمنا وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا وحلال ما يحين صفة اللحاد ضدك قريها كنا ولا كسفوا بين وحويان إن علاقاتك إياها قريها قديه سددك شوقة يددك ديبدا كغنول علاقاتك كدحية وحي كل لسان على شرع الله ومنهجه شرع إلهي هي منهج كيس أي كتل لسيان وهذه خلافات قرية كدحدعو مركيو محكمتكم الروران سقرر ميسين حوين يدو حاسك وران ميسو وانا نكام بابيو يسوون وران ماي وانا كتخلصو لكن ومحي وحيقولنا قريان كتابك إلهي يسنها رسولك صلى الله عليه وسلم مثلا أنا وإن آل بغفر سو أيها الإخوة والأخوات الآل بغفر سويا وهذه خلافات قرية وكدحدعو خلافات كاسي وإن لو نقضه كتابك إلهي يصنع رسولك صلى الله عليه وسلم سوى عن أو ناكسن أو دين توافقنا إن حلوا قبارو النبي صلى الله عليه وسلم أيام عن بروح وصو قلي صفية بنت حيي رضي الله عنها صفية أبيضها يهودي بها فوجدها تبكي لتروح على يد أويسة فقال لها نبي كوين صفية حاس كيسي بهاد ما يبكيك محاك أو هنايا قال ضحي تري حفصة أيا يقول تري أبهاي يهودي بها أبها يهودي بها ركان كاس كوهي حفصة يقول تري أبها وحى يهودي نبي جيب أمرك أرنكيو نبي يقول علي